عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إذن سلام يا مير العالم كأتكجوكتان وحد نقل ساعتان بالمديت ميدي جروب وحد نضلا يعني إسحاق إبراهيم فضلا هدي أتكو عصبتها channel كا وحاس حشمة احتراف لك عصننا إن أدنو صوبيرتو مخالد كوسو جاردونا لو ذاك أصحابتك لا سي أيجن أي وقف أيضا وحبلا إن runtii maanta waxaan jeclaystay in aan idin la wadaago muuqaal runtii aad u cajiib badan isla markaana daqiiqada yar soconayo laakiin macnaha uu xambaarsan yahay iyo xikmadda ku jirto ee runtii aad u weyn tahay qof waliba daawadana aan rajaynayo inuu wax badan oo ka faa'iidi doono muuqaalka wuxuu ku saabsan yahay hooyo aad u caqli badan isla markaana gabadheeda dareensiinayso sida ay maamada muhiim ugu tahay qoyska ama hawsha ay maamada guriga ay ka hayso in ay ka muhiimsan tahay ka weyn tahay hawsha aabaha oo ka hayo guriga dibadiisa really waa xaqiiqo laakiin waxa nasiib daro ah boqolkiiba 80 dadkeena inay moog yihiin in ay gabadha guriga joogto naga shaqo badan tahay isla markaana waxyaabo badan oo anaga haddii nala soo bandhigo aan qaban karin ay gacanta ay ku hayso ha ugu weynaato shaqadii guriga iyo maamulkiisii tii caruurta laakiin adiga waxaa laga yaabaa oo kaliya 8 saacadood inaad banaanka aad ku maqnaatid oo taadid waa soo shaqeeyay iyo intaas aan soo qabtay waa soo daalay laakiin ayda shaqadeeda waqti ma laha shifti oo bilow iyo dhamaad leh ma aha waa 24 hours online ay tahay way shaqeysaa Allah yajzihim Allah subhanahu wa ta'ala ayaan u baryaynaa runtii wax walba wanaag ah ay inoo hayaan inuu awaalkooda siiyo sidaas daraadeeda ayuuna Allah subhanahu wa ta'ala runtii mudnaanta kood uu ku siiyay maamada markii laga hadlo xuquuqda ay kugu leeyihiin waalidiintaada marwaa inaan wax badan aan ku dheeraado waxaan rabaa inaan videoga aan isla fiirino su'aal ayuu ku bilaabatay oo ah haddii aad weynaato maxaad jeclaan lahayd inaad noqotid hooyada ama aabaha gabadhii ayaa wax yar markay fikirtay waxay ku jawaabtay waxaan noqon lahaa aabahay oo kale maxaa yeelay asigaa kaa shaqo badan kaa muhiimsan adiga waxaa laga yaabaa yani shaqooyin basiita oo waxba ahayn inaad guriga ka haysid jikada iyo waxa u dhaxaysa qolka marka waxay tiri aniga waxaan jecelahay inaan noqdo aabahay oo kale maxaa yeelay asigaa kaa muhiimsan runtii hadalkaas hooyada waa taabtay oo yani wuxuu ka dhigay dismoral sidaas daraadeed waxay jeclaysatay gabadheeda in ay fahamsiiso maamada inay tahay qofka ugu muhiimsan guriga ama shaqada loo wada hayo qoyska fadlan aan isla fiirino sidii ay u dhaxmartay sheekada kadibna waan idin sharaxi doonaa. Who would you want to be when you grow up? Your mother or father? Well, that's easy. You probably want to grow up to be just like mommy, right? Mommy? Actually, no. I want to be like Daddy. You don't want to be like me? No, because your work is not hard at all. And Daddy's work is more important. Okay, all done. Now I can go play. sidaad arkayseen ama horey aan idinku sheegay su-aasha markii la isweydaarsaday oo gabadha la weydiiyey aad jeceshahay inaad noqotid hooyada ama aabaha gabadha waxay si fudud ugu jawaabtay inay noqonayso ama ay jeceshahay inay noqoto aabaheed oo kale maadaama uu ka muhiimsan yahay ama uu ka shaqo badan yahay hooyada waa sida ayada ay u aragtay hooyada arrintaas runtii waxay ku noqotay inay ka xumaato ama ay disappoint ay ku noqoto so marka waxay jeclaysatay haddana inay gabadheeda ay fahamsiiso inay maamada ay tahay qofka ugu muhiimsan guriga sheekada waa socotaa aan isla fiirino weli waxaan jeclaystay sida xikmadaysan oo runtii maamada ay jeclaysatay inay gabadheeda ugu qanciso ama ay u fahamsiiso inay tahay qof ka muhiimsan aabaheed. Mommy, I'm hungry.
Can you make me some food? Oh no, honey. I am not feeling up to it. But it's not that hard. su-aalihii markay isweydaarsadeen kadib maamada runtii waxay joojisay shaqadii ay haysay islamarkaana jikada ay ugu jirtay inay cunto kariso. sariirteeda ayay timid, gabadhii ayaa baahi soo qabatay, hooyadii u timid waxay tiri hooyo baahi ay hayso. maamadana waxay ugu jawaabtay aniga maanta waa xanuunsanahay, ma umaleynaya inaan wax samayn karo, marka wax weynna maaha inaan cunto la sameeye, bal isdibir. gabadha waxaa la yidhi waa maanta isdibir. marka way soo baxday, kadibna waxay raadsanaysaa waxay cunto. let's see waxay kala kulantay. Okay. Mommy, I made a mess. Can you help me clean it up? Oh, I am sorry, baby. I am just not in the mood to clean right now. But it's not that hard. Okay. gabadhii mar labaad ayay hooyadad kusoo laabatay. markii ay isku dayday inay cuntada ay samaysato, runtii wax badan waa u hagaagi waayeen oo waxay wasaqaysay meelihii ay wax ku cunaysay iyo sidii ay cuntada u diyaarsanaysay oo intaba oo khaldaneed. kadibna hooyadad ay kusoo laabatay iyadoo ka codsanayso in waxyaabihii ay wasaqaysay, miiskii iyo wax kasta oo yacni caanaha iyo waxyaabaha ay cunaysay ugu daateen inay nadiifiso. hooyada waxay tiri aniga maanta waa xanuunsanahay, farma dhaqaaji kari, marka wax weynna maaha inaa wax la nadiifiye, gabadheedii adiga le sii dhamaystir. marka gabadhii waa soo laabatay, sheekada wili way socotaa. gabadha maanta waxaa loo dhigaa cashir aada u weyn. Mommy, I dirtied my favorite shirt. Can you wash it? Oh no, honey. I just don't feel like watching anything tonight. But it's not that hard. Okay. gabadhii mar saddexaad ayay kusoo laabatay hooyadeed iyadoo dhehayso maamo waxaan wasaqeeyey funaanada igu jirto oo waxbaa iga gaaray oo wasaq ah, marka ma ii dhaqi kartaa? funaanadan waa tii aniga aan jeclahay oo dharkeyga ugu jeclahay. maamada waxay tiri aniga maanta waa xanuunsanahay, farma dhaqaaji kari, wax weynna ma aha inaad funaanad kugu jirta dhaqatide ee gabaday adiga le waa isdibir, wax weyn ma aha waxaase. marka waa cashirkii saddexaad oo maamada ay ku tusinayso gabadheeda shaqada ay guriga ay ka haysay. allahu akbar. You don't want to be like me? No, because your work is not hard at all. Mommy, can you please check my homework again? I want to be like my mommy because her work is super important. I'm sorry, Mommy. amazing. markii loo diray gabadha inay nadiifsato ama ay dhaqdo shaatigii ay wasaqaysay ama funaanadii ay wasaqaysay, runtii waxaa laga yaabaa in 5 minutes gudaheeda dhowr shaqo in loo diray, 3 shaqo oo kala duwan. inay cuntadii ay samaysato, meeshii ay wasaqaysay inay nadiifiso, dharkii ay wasaqaysayna inay dhaqdo. saddexdaba waxay ku noqotay waxyaabo aysan malaysan karin. kadibna waxay fikirtay ama ay ogaatay runtii maamada shaqada ay hayso inay tahay super important, mid aad iyo aad iyo aad u muhiim ah. وفعلا يعني أنا قد أنواع قرصنا إن سيداس أيتاي، لكن وحنا لقوا واجي إن أنا أخرنا أما أنا أقولنا إن أيهين قبلها جوري الجوجو هنا قطها أيضا كل شيء، هنا قطة قبل كل دلتي، هنا قطة عرور هذا إن هو يدود رنتي وعنصرك أما فيكتورك أو مهم سنقيسك محايلة شقوينك هايان هدي أم بخلصنا اسكو دينا إن قبنا I'm sure إن أنا هالشيء أنك قبن كريم. sidaas daraadeed maxaa lagu waayay inaan gabadha guriga joogto aan ugu mahad celino hawsha ay hayso.
laakiin haddii aad iska dhaadhicisid inaad tahay qofka ugu muhiimsan maadaama 8 saacadood soo shaqaysay ama soo shaqaysay 12 saacadood runtii u maleynayo in aad marnabo gaari kartid gabadha guriga joogto shaqada ay hayso isku day hal maalin oo kaliya in aad qabatid from 6 to 6 shaqooyinka guriga yaal wallahi inaadan qaban karin madaxa ku xanuunayo maxaa yeelay ayaga Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u sameeyay sidaas adkaysigaas iyo dulqaadkaasna waa leeyihiin waa runtii waxay ku amaanan yihiin laakiin anaga يعني دقات كاسي أتكاسي اسمليني لكن وحنا نسيب دراء إن لقوايو أم إن أخير وينو إن دت كاسيين دت كنومي يمسن أم ناق إمبورتيتسن هاد كانوا حاليا يابا إنه أركان قبل جوري جوكتو يعني وجوري جوكتو يعني حتى كلمة داس استعمالنا أنت بدن هبل محي قوتا وحب مقاوته اسك جوري جوكتو اسك جوري جوكتو لكن شقادة إيه هيسو ما شقادة بنانك لوها هاي أم شقة فضوط muhiimadda ay leedahay gabadha guriga joogto iyo shaqooyinka ay hayso iyo yani qoyska siday ugu muhiimsan tahay Allah subhanahu wa ta'ala iyo shariicada islaamka kulli way ka wada hadleen taas ayaana sabab u noqotay in ay noqoto asbaabta jannada lagu galo qayb ka mid ah nabiga kaleey salaatu wasalaam ku dhahay aljannatu tahta aqdam al-ummahat yani ma ahan wax fudud iyo in la iska yiri laakiin waxa la og yahay maamada yani dhibka ay leedahay iyo dhibaatada ay soo martay ha noqoto korsiimada ilmaha ha noqoto maxaa la yiri shaqada guriga iyo wax kasto sidaas daraadeeda anigu aan jeclaan inaan hadalka idinku badiyo kaliya aan ogaano gabadha guriga joogto runtii inay naga shaqo badan tahay isla markaana aan u khirno wax walba sameysana aan dhahno waa mahadsan tahay jazakallahu khayr aljazaa runtii waxa aan sameysay abaalkeeda ma iloobi doono iyo wixii la mid ah ugu yaraan intaas ka hesho laakiin haddii aad timaadid raashinkii la kariyay complain ka bixisid aad tiraadid raashinka noocan ee maxaa waay kan saan maxaa waay wasaqdan inta taal maxaa waay iyadoo maanta intaagneed 24 saac shaqeynaysay runtii waa nasiib daro sidaas daraadeeda waxaan idin ka codsanayaa dhammaan haddii aan nahay ragga Soomaaliyeed in aan gabdhaha Soomaaliyeed u khirno inay yihiin dadka ugu shaqada badan naga shaqo badan u muhiimsan qoyska naga muhiimsan wax walba oo adduunyada ku saabsan anaga aan sameynayno qaarkeena waxa laga yaabaa adduunyada inay ku joogaan maqaamo badan qaarkeena madaxweynaha qaara maxaa la dhihi jiray culumo dad aqoonyahana inta waxa ogaataa haddaysan gabadhaas ay ku soo saarin inaadan noqonaynin maxaa yeelay hooyaa ku dhashay aa kugu soo dadaashay inaad heerkaas gaartid walaashaa guriga joogto waxaa laga yaabaa dartaada inay waxbarashadeeda u seegtay inay ka shaqeyso guriga si adiga iskuulka markay ka timaadid ama jaamacadda dharkaaga u nadiifiso raashinkaada iyo cuntadaada ay u sameyso waxay ka gaabisay taydii ayada laftadeeda ahayd taas waa xaqiiqo 80% gabdhaha Soomaaliyeed guriga ka shaqeeyaan waxa iskuul loo diraa gabdhaha wiilasha iyadoo loo yani loola jeedo gabadhan ha u shaqeyso wiilkan iskuulka aadayo ama wax sameynayo cadaalad daro ahayd waana cadaalad daro ilaa hadda jirto marka ugu yaraan maadaama waalidka cadaalad daradaas ay sameeyeen anaga oo khirna gabdhaha walaalaheena inay yihiin dadka halkaasna soo gaarsiiyay hooyada qofka sababteeda aan adduunyada ku joogno isla markaana wax walba wanaag aan sameynay in iyada ay u tahay maxaa la dhihi jiray sabab sidoo kale gabadha caruurta noo dhashay guriga joogtana iyadana inaan sharaf iyo mudnaan inay naga mudnaato Allahu musta'an nolosha aan ku noolnahayna nooca rabta ha noqoto qofka kaliya garabka noo siinayo in iyada ay tahay aan la'aanteeda waxba qabsan karin waa maasantiin intaas ayaan jeclaaday in aan idin la wadaago fadlan haddii aad aragtid muuqaalo oo isleedahay yani faa'iido badan ku jirto dadkan waxay ka faa'iidayaan waad nala wadaagi kartaa kadibna waxaan u bandhigaynaa daawadayaasha ku xiran Dulmidity Media Group waa idin salaamayaa mar kale waa anaga isku duuban waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh